muqdisho degan oo meelaha xeebaha degan oo meelaha gaalada timaado oo mujaahidiintu ay macnaha inay weer soo ha ka fogaadaan amuradana hore idinku sheegtay annagana hadda waynu ku digayna war meelaha gaalada joogto si la yaab leh ayuu isku miidaamiyo ka dugan sidii ay isku qarxin jireen dagaalyahanada al-shabaab goobta uu beegsadayna waxaa ka agdhow xarunta baarlamaanka wasaaradaha dalka iyo sidoo kale xarunta madaxtooyada shalayse sirdoonka ajaanibta ee ku sugan xalanle waxay ka digayeen qaraxan iyo kuwo kale oo ku jira muqdisho waxaase jirta wada shaqayn buuxda oo ka jirta muqdisho ku aadan qaabka qaraxyada loo fulinayo si aad u heshid macluumaadkii ugu dambeeyay ka mid noqon milyuunka qofood ee nagu xiran kuna soo biir beejkeena kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxa idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka leegareeya sheergareeyana waxa rabbi subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryaynaa qof walba oo muuqaalka leegta ku qabtaa sheergareeyana inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala awlaadda uu barakeeya inta awlaaddoonkaan ilaahay awlaad baari ah hasiyo dambigiin iyo dambiga waalidkeenana abaa dhaaf rabbi subxaanahu wa ta'aala ha idinku casuumo جنة الفردوس على حاسد كوحلا نهاي ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وعكودا بين يهوغي قصاره انت عنوصنا ربي سبحانه وتعالى حنون كاكدر قادة أمد صومالين ربي سبحانه وتعالى قرقار كيسي نسري كيسا إبوين هاسيو مقدشو وحاقور لو كدا عي قرح اسمي دامنها كاس وفليي قف اسكو صحيري وحيابها قرحة أو ستي قارين نوها سيدا اي شيغيان قوب جوغياسا كسوان قوب تقرحة وكدا عي اي اقار كسيدك halkaas oo ay ku taal xarunta baarlamaanka isla markaana ay degan yihiin qaar ka mid ah wasaaradaha ugu muhiimsan ee dalka goobjoogayaasha ayaa waxay tilmaamayaan in qofka ismiidaamiyay gaariga si xooli ah uu soo waday markii uu marayay agaarka isgoyska dabka isla markaana uu soo jiray jagbonti halkaasi ay ku leeyihiin ciidamada booliska asoo isla markaasi rasaas ridaya waxaana dabadeed uu isku qarxiyay agaarka siidka jagbonti ciidamada dawladda ay ka ilaaliyaan xarunta madaxtooyada xarunta baarlamaanka iyo waliba wasaaradaha halkaasi ku yaal ana la tilmaamay qofka ismiidaamiyay inuu qaylo uu ku dhawaaqayay xilli ka hor intuusan isqarxinin wuxuuna ridayay rasaas aad u xoog badan waxaana goobjoogayaasha ay sheegayaan in qofka ismiidaamiyay uu watay dariiska ciidamada dawladda gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay ee isticmaasho hay'adda nisa taas oo muujinaysa in saraakiisha hay'adda nisa oo ugu horeeya taliyaha hay'adda fahad yaasiin xaaji daahir oo kol hore ka tirsanaa golaha dhexe ee dagaalyahanada al-shabaab ku-xigeenkiisa kulanajiis madaxii hore ee sirdoonka al-shabaab haddana ah madaxa sirdoonka hay'adda nisa sakariye ugaaska iyo xubno kale oo hay'adda ku jira in toos ay ula shaqeeyaan dagaalyahanada al-shabaab waxaana sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in jagbontiyo badan oo ka tirsan kuwa dawladda oo yaal muqdisho in qofka ismidaamiyey uu ku soo maray kaar ay leeyihiin hay'adda nisa taasoo u sahashay inuu yimaado aagaarka xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho ma cadda in taargetka uu lahaa ay ahayd goobta uu isku qarxiyay ama inuu u socday goob kale oo muhiim ah oo ay la ogaayeen saraakiishii qaraxa la soo diyaarisay ka tirsan hay'adda nisa laakiin saraakiil ka tirsan booliska oo aan la hadalnay waxay xaqiijiyeen in qofka ismiidaamiyey in jagbontiyo ka tirsan kuwa dawladda gaar ahaan kuwa ay leeyihiin ciidamada booliska inuu ku soo maray eedhikaar hay'adda nisa ay leedahay uu watay qaraxa ayaa geystay qasaarooyin iskugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo soo gaaray askar saraakiil iyo waliba dad shacab ah oo ka agdhawaa goobta qaraxa uu ka dhacay oo ku taal agaarka baarlamaanka ama ka agdhow xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxaa la hayaa dukumiintiyo iyo cadeemo ku aadan in hay'adda nisa saraakiisheeda ugu sareysa iyo sidoo kale dagaalyahanada al-shabaab ay leeyihiin wada shaqayn ku aadan qaabka qaraxyada loo fulinayo iyo waliba qolooyinka la beegsanayo inay isla og yihiin hay'adaha sirdoonka ee ku sugan xalanle iyo waliba kuwa UN-ka ayaa shalay diray fariimo qoraal ah oo ay ku direen emailada waxaana fariimahaasi ay ka digayeen in qarax uu ka dhacayo muqdisho ayadoo isla markaasi fariinta UN-ka ay baahisay sidoo kale hay'adaha sirdoonka xalanle ku sugan lagu sheegay in gudaha muqdisho ay ku jiraan gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa lana doonayo in lagu beegsado hoteelo waxaana la carab dhaway hoteelo ku yaal liido laakiin waxay UN-ka qoraalkooda ay ku sheegeen iyo waliba hay'adaha sirdoonka inaysan ogeyn goobta rasmiga ah ee qaraxa uu ka dhici karo iyo waliba xilliga uu dhici karo laakiin waxay ugu baaqeen shaqaalaha dawladda iyo saaxiibadoodaba in ay muujiyaan fawjignaan isla markaana laga fogaado goobaha hoteelada iyo baararka ay iskugu yimaadaan dadka welise waxay sheegayaan ilaha sirdoon ee aan helayno in muqdisho ay ku jiraan gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyo waliba rag hubeysan oo toos weerar u qaadaya kuwaas oo beegsanaya siyaasiyiinta mucaaradka ku ah madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday
farmaajo waxaana qaraxa door weyn ka ciyaaraya ama fulinta weeraradaasi door weyn ka ciyaaraya saraakiil salsal oo ka tirsan hay-adda nisa halkan kala soco macluumaadka arrimahaasi ku aadan oo mujaahidiintu ay macnaha inay weerar soo qaadeen ha ka fogaadaan amuradani hore idinku sheegtay annagana hadda waynu ku digayna war meelaha gaalada joogto ka fogaada annaga iyo gaalo dagaal noo dhaxeeyo ha ka fogaadaan annaga kala ma garanayn annaga nin meel fadhi xildhibaan la fadhi wasiir la fadhi ma garanayn marka qolada muslimiinta ma hajo xeebaha waxa meelaha gaalada iyo ka